waa mar kale iyo wararkii warbixinihii aynu ku eegeynay xaaladda argoosi ee wadamada Mareykanka iyo Iran iyo sidoo kale xaaladda bariga dhexe. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa maruu maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta aqalka cad ee Mareykanka waxa uu sheegay in Iran gantaalo ka badan 10,000 kula dhacday saldhigyo ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Ciraaq iyagoo ay argoosanayeen dilkii Washington ay geystay generaalkii Iran ee Qasem Soleimani. Donald Trump ayaa waxa uu intaasi kadib markii warbaahinta la hadlay waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray in wax walba ay hagaagsan yihiin isla marhaantaana sidii loogu talagalay u socdaan. Markii waagu bariyay waxa uu madaxweynuhu isku day inuu sharaxaad ka bixiyo sababtii arrintaasi u arko isagoona uu sharaxaad faahfaahsan ka bixiyay arrimahaasi uu ku soo qoray habeennimadii xalay bartiisa Twitterka. Hadaba madaxweynaha Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa khudbadii 10 daqiiqo ahayd ee uu jeediyay waxa lagaga xogaagsaday isla marhaantaana xiisadda labada waddan looga fahmay 5 arrimood oo kaliya waasi oo carrada danka inay Iran u muuqatay gadaal u degayso taasina ay noqonaysaa arrin fiican dhinacyada walaacsan ee xaaladda wadamadan soo kala dhex gashay ka walaacsan ay u tahay mid wanaagsan. Su'aasha qof walba isweydiinaya markii gantaalada Iran ay dhaceen waxay ahayd inay xigi doonto inuu Mareykanku sameyn doono mid taasi la mid ah, balse madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuusan wax khasaare ka dhalin weerarkaasi lagu qaaday labada saldhig ee ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin Ciraaq taasina ay ka dhigtay inay ficil military looga jawaabi doono Iran. Sidaatee waxa uu Trump khudbadiisa ku sheegay inay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan waddanka Iran gaar ahaan magaalada Tehran oo ah halka ugu badan ee bartilmaameedka Iran ay tahay. Isku soo wada duubo khudbadaasi uu jeediyay madaxweynaha Donald Trump ayaa waxa ka dambeysay hogaamiyaha waddanka Iran Hassan Rouhani isna bartiisa Twitterka hadallo ka yidhi ayaa waxa uu sheegay in hadalka madaxweynaha Donald Trump uu yahay waxba kama soo qaad isla marhaantaana xaaladii argoosi ee u dhaxaysay labada waddan halkeedii taalo. Waxaana uu sheegay madaxweynaha Donald Trump Hassan Rouhani hogaamiyaha waddanka Iran in xaaladii halkeedii taagantay isla marhaantaana Iran ay ku dul taagantahay sidii ay weerar kale uga fulin lahayd goobaha iyo saldhigyada ciidamada Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe. Hase yeeshee waxa iyaduna arrintaasi kadib soo baxday koox xulafaysiya oo ka soo jeeda oo ka dagaalama bariga Iran oo sheegay inay Iran isbahaysan doonaan isla marhaantaana Mareykanka ay duulaan ku qaadi doonaan iyaguna ay kooxahaasi barta Twitterka ay ku leeyihiin ay ku soo faafiyeen qoraallo kala duwan oo kala taabacsan arrimahaasi waxaana sheegeen in Marinka Hormuz oo ah halka ugu badan ee saldhigyada militariga ku leeyahay waddanka Mareykanku ay weerar ku qaadi doonaan saacadaha soo socda. Qaramada Midoobay ayaa laftirkeedu ka hadashay arrintaas iyadoona ay ka digtay una sheegtay xulafadaasi in haddii ay ku dhaqaaqaan falkaasi ay tallaabo cad ka qaadi doonto. waxaana qaramada midoobay sheegtay waan ku dhowdahay wadahadaladii u dhaxeeyay wadamada Mareykanka iyo sidoo kale Iran. waxaana qaramada midoobay ka digtay arrintaas ay xulafadu sheegtay. dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa ka hadashay wasiirka gaashaandhigga ee dawladdaasi ayaa waxa uu sheegay in haddii ay tallaabadaasi ku dhaqaaqaan xulafadaasi bal israacin doono xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale xaaladda argoosi ee u dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo Iran ayaa cirkaas ku sii shareysay saacadii la soo dhaafay kadib markay xulafadaasi sheegeen inay isbahaysan doonaan Iran duulaanna ku qaadi doonaan saldhigyada Marinka Hormuz uu ku leeyahay Mareykanku. intaasi kadib hadaladii ay isweydaarsadeen labada hogaamiye wadamada Iran iyo Mareykanka Hassan Rouhani iyo sidoo kale Donald Trump ayaa waxa uu noqday mid saameyn badan ku abuura bulshada kala duwan ee caalamka taasi oo dhalisay hadal hayn badan oo ku salaysan waantii uu madaxweynaha Donald Trump sheegay xagee ay ku dambeysay markuu ma wada hadleen hogaamiye Hassan Rouhani hogaamiyaha waddanka Iran iyo sidoo kale madaxweynaha Donald Trump. haddaba arrintani argoosiga u dhaxeeya labada waddan ayaa waxay noqotay saacadii la soo dhaafay mid cirka isku sii shareeshay iyadoona ilaa hadda wax dhawaqa laga maqlin labada waddanba.